بسم الله الرحمن الرحيم كلنتو أنا بونتا وذي الميل بعد جزء كتر هذا تاريخا دولة كوبليت كلمة ودولة كوبليت كتر جمهورية فدرال كصوماليا تاسو مكالمة من حدود تحديد سمريب كلمة واحد حدود لو ذكرتن كوقوي دولة كوبليت كبدران حال كذلك البين يترس كلتها ملك صومالية دي إثيوبيا dhanka koonfurna waxay daris kala tahay dowlad goboleedka Hirshabelle iyadoo dhanka barina ay daris kala tahay badweynta Hindiya dowlad xarunta baarlamaanka Galmudug waa cadaado waxa Galmudug xilka madaxweynaha haatan kursiga ku fadhiyaan madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye dowlad goboleedka Galmudug waxay ka kooban tahay laba gobol oo kala ah Galgaduud iyo Mudug waana halka magaca Galmudug ka yimid oo ah isku darka labada magac ee labada gobol Galmudug waxay caan ku tahay خيرات كبدن سيدا عاني وهيلك تاريخا waxaa dowlad goboleedka Galmudug la aasaasay 14 bishii Agoosto sanadkii 2006 Maxamed Warsame Cali Kiimiko ayaa xilka madaxweyne maamulka cusub markaasi loo doortay iyadoo markaasi magaalada Kalkacyo ay noqotay xarunta maamulka magaca Galmudug waa isku darka magacyada gobolada Galgaduud iyo Mudug xiriirka labada maamul ee Galmudug iyo Puntland ayaa weligii ahaa mid xasaasi ah hase ahaatee labada maamul ayaa ka jiray dhowr mar sidii xal looga gaari lahaa xiisadaha soo noqnoqda wakiilada kala socda labada maamul ayaa bishii Febraayo sanadkii 2011 heshiis kala saxiixay magaalada Garowe caasimada dowlad goboleedka Puntland taasoo labada dowlad goboleed heshiiyeen inay yeeshaan wada shaqayn arrimaha ammaanka dhaqaalaha iyo bulshada doorashada madaxweynaha Galmudug kowdii bishii Agoosto sanadkii 2012 waxay baarlamaankii ku horeeyay ee dowlad goboleedka Galmudug ka koobnaa 25 xubnood madaxweyne u doorteen Jenaraal Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid kaas markaas bedelay madaxweynihii hore ee Galmudug Maxamed Axmed Caalin oo xilligaas dalka dibadiisa ka maqnaa arrimo caafimaad Qaybdiid wuxuu helay 22 cod halka uu hal cod helay musharaxii la tartamayay Cabdisalaam Nuur Kuuleed Qaybdiid ayaa loo dhaariyay shaqada madaxweyne Galmudug xafladda ka dhacday magaalada Kalkacyo taasoo lagu xuseeyay 60 sano guuradii ka soo wareegtay aaska dowlad goboleedka khudbadii uu jeediyay maalintii caleemasaarka ayuu ku ballan qaaday inuu ka shaqayn doono amniga gobolka balaarinta maamulkiisa iyo deegaanada kale xiriir wanaagsan ee maamul goboleedyada dariska la ah iyo dowladda Soomaaliya xaaladda rasmiga ah sanadkii 2013 ayaa si rasmi ah looga dhameystiray nidaamka federaaleynta Galmudug maamulka madaxweyne Qaybdiid ayaa cadeeyay in Galmudug soo dhameystiray shuruudaha ay ku noqon lahayd dowlad goboleed sida ku cad dastuurka Soomaaliya hase ahaatee waxaa arrintan aqbalin dowladda federaalka 2013 bishii Abriil dowladda federaalka Soomaaliya ayaa aqbashay qodobka 49 ee dastuurka Soomaaliya oo qeexaya igleelida dowlad goboleed ayaa sharti ka dhigay in rabitaanka laba gobol iyo wixii ka badan ay noqon karaan dowlad goboleed xubinka dowladda Soomaaliya maadaama Galmudug ay ka koobneed qayb ka mid ah gobolka Mudug ayaa waxaa wasiirka arrimaha gudaha federaalka Soomaaliya Cabdikariim Xuseen Kuuleed ku dhiirigeliyay Galmudug inay la mid noqoto gobolada kale oo markaa maamulka leh sida Ximan iyo Xeeb isla markaana ay soo dhisaan maamul midaysan oo ka kooban gobol iyo ka badan sida ku cad dastuurka Soomaaliya waana ka inta barnaamijkeena inta jeedinayay anigoo ah Yaxya Cabdiraxmaan Xuseen waana ka inta barnaamijka kaliya kan kala mid ah biladu lama saarto goosto la isku magaraace garashada lamala kala ebawe karbasima dadkeenu qoy ebawe karbasima dadkeenu qoy garashada habooni goobtidu saameeyna qodobiya xumaan maale gurmadkiyo ammaankiyo inayna baadu gaadho gurmadkiyo ammaankiyo inayna baadu gaadho Galmudug nabad ku waataan guule uga baryayna
ammaankiyo inay nabad u gaadho gurmadkiyo ammaankiyo inay nabad u gaadho galmudug